wacan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan warka Juba TV ee magaalada Muqdisho qodobada ugu waaweyn waxaa kamid ah madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo meel mariyo go'aan dhawaan ay xukuumadda soo saartay Soomaaliya oo guul weyn ka soo hoysay hoggaanka guddiga Afrika ee heerka wasaaradeed booliska Soomaaliya oo gacanta ku soo dhigay nin ku eedeysnaa dilka gabar ardayad ahayd hooyada dhashay gabar ardayad ahayd oo si arxan darro ah magaalada Muqdisho ugu dilay oo ka mahadcelisay soo qabashada ninkii dilay gabadheeda Africom oo war ka soo saaray duqeyn dhawaan ay ka geysteen gobolka Hiiraan baaraadka dibadda warka ay ku daawan doontaan waxaa kamid ah dowladda Shiinaha oo qorsheynaysa inay samaysato roob macmal ah daawadayaal intaasi waxay ahaayeen warkeena kuwa ugu door korona haatan ku soo dhawaada iyagii oo dhameystiran madaxweyne Xasan Sheekh ayaa meel mariyay go'aan ka dhawaanay xukuumadda soo saartay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo tixraacaya soo jeedinta ra'iisul wasaaraha xukuumadda mudane Xamse Cabdi Barre ayaa wareegta madaxweyne ku soo saaray xubnaha guddiga maamulka hay'adda maareynta iyo musiibooyinka Soomaaliya Sodma madaxweynaha ayaa tilmaamay mudnaanta ay dawladdu siinayso howlaha gurmadka iyo samata bixinta dadkeena dhibaataysan waxa uu golaha xukuumadda ku bogaadiyay ansixinta iyo soo gudbinta xubnaha guddiga maamulka hay'adda maareynta musiibooyinka oo goluhu cod buuxa ku ansixiyay madaxweynaha jamhuuriyadda oo ka duulaya codsiga xukuumadda gaar ahaan wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta mudane Axmed Macalin Fiqi ayaa wareegta madaxweyne ku soo saaray guddiga maamulka hay'adda maareynta iyo musiibooyinka oo kala ah mudane Maxamuud Macalin Cabdullaahi gudoomiye Dr. Axmed Cabdi Aadan gudoomiye ku-xigeen mudane Cabdirashiid Maxamuud Xasan agaasime Marwaluul Axmed Culow agaasime mudane Cabdirasaaq Axmed Cali agaasime madaxweynaha ayaa u rajeeyay guddiga inuu alla u fududeeyo gudashada mas'uuliyadda qaran ee loo xil saaray isagoo kula dardaarmay in si daacad ah oo hufan ay ugu adeegaan dadkooda Soomaaliyeed iyo dalkooda Soomaaliya ayaa guul weyn ka soo hoysay hoggaanka guddiga Afrika ee heerka wasaaradda sida faahfaahinta warkaan uu ku eegaya Cabdifataax Durdur wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa ku guuleysatay hoggaanka guddiga Afrika ee CDC ee heerka wasaaradeed isla markaana ay xubno ka yihiin wadamo badan oo Afrikaan ah kadib tartan adag iyo olole xooggan oo dhawaan ka dhacay dalka Tanzania wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka Soomaaliya mudane Maxamed Xasan Maxamed Buraale oo Soomaaliya ku metelayay shirka lagu dooranayay hoggaanka cusub ayaa dadaal dheer iyo olole ballaaran galiyay in Soomaaliya ay madax ka noqoto guddiga heerka wasaaradeed ee ah qaaradda Afrika waa hay'ad farsamo oo midowga Afrika u qaabilsan inay ka caawiso dawladaha xubnaha ka ah iyo ururada iyo dadaalada ay ku ogaanayaan qorshayaasha ugana jawaabayaan khataraha caafimaad ee bulshada iyagoo isticmaalaya cilmiga sayniska xogta iyo waliba siyaasadooda taasi oo lagu gaari karo iyada oo la horumarinayo awoodda xirfadlayaasha caafimaadka dadweynaha iyo kaalmada farsamo ee la siinayo wadamada ay soo food saarto walaacyo caafimaad oo murugsan Soomaaliya ayaa waayihii la soo dhaafay waxa ay tartan xooggan u gashay sidii meelo wanaagsan ay ugu soo muuqan lahayd ururada ay ka mid tahay sida ururka midowga Afrika booliska Soomaaliya ayaa gacanta ku soo dhigay nin dil dhawaan ugu geystay gabar ardayad ahayd magaalada Muqdisho sida faahfaahinta warkaan uu ku eegayo wariyeena Bishaar
faahfaahin dheeraad ah ayaa waxaa laga helayaa howlgal ay ciidamada booliska Soomaaliya ka sameeyeen ceelasha biyaha ee duleedka magaalada Muqdisho. Howlgalkan oo ahaa mid qorsheysan ayaa waxaa lagu soo qabtay eedeysano lagu magacaabo Jeylaani Aadan Abaadir, kaas oo loo haysto dilkii Allah u naxariistay Hiba Qaasim oo ka mid ah ardaydii ku baastay imtixaanka dugsiyada sare ee dowladda. Taliyaha qaybta galbeed ee ciidanka booliska gobolka Banaadir Yaasiin Ganey oo ka warbixiyay howlgalka ayaa sheegay in eedeysanaha uu qirtay dilka marxuumada, isla markaana uu dilay taleefan dartiis si uu uga dhaco. Yaasiin Farey ayaa tilmaamay inay u gudbin doonaan hay'adaha ku shaqada leh sida CID-da si markaas looga qaado tallaabo adag. Farxaddii murugada isku bedeshay waa Ilaahay mahadiis inaan caawa gacanta ku soo dhignay dambiile Jeylaani Aadan Abaadir oo dib u geystay ama dilay oo u dilay mobile dartiis Hiba Qaasim Maxamed oo ardayad ahayd oo ka qalin jabisay dugsiga sare ee dalka. Farxad ayay ku sugneed, laakiin wuxuu ugu bedelay murugo cidii dhashay hooyadii oo dhashay Faa'iise Maxamed Abuukar la yiraahdo oo caawa habeenadaas ku soo korisay agoontinimo. Wuxuu dhibaato u geystay asagu ayay la ilmaysay. Waxa dhibaatadaas oo dhan geystay waa Jeylaani Aadan Abaadir. Dhibanuhu wuxuu ku geeriyooday ceelasha biyaha isbitaal ku yaala oo la soo xaqiijiyay la yiraahdo Riyaad Specialist Hospital. dhibkii uu geystay Jeylaani Aadan Abaadir gacanku dhiglihii gacanta ayaa lagu dhigay. Waxaan u gudbi doonaa hay'adaha ku shaqo leh sida CID baaritaankiisa inkastoo uu qiraal yahay, laakiin baaritaan badan iyo siday wax u dhaceen iyo dhacdooyinkii kale uu soo sameeyay. Hooyo waxay ii sheegtay Faa'iiso in uu gabadhii ka yaraad hadda ka hor isagoo dil raba ay midi uu u wada ay ka badbaaday, gabadhii yartaana ay sheegtay. Booliisku waa didaalay, taliyaha saldhigga iyo gudoomiyihii deegaanka oo aan seexan ayaa ku didaalay. ciidan deegaanka ayaguna deganoo sida wanaagsan ayaguna nolol shaqeeyay. Waxaa la sameeyay tilmaamtii meesha wax ka geysanayay nin deegaan ah ayuu ahaa oo dhibaatada uu ku geysanayo. Tilmaamtii markii la sameeyay dabagal dheer gacanta ayaan ku soo dhignay. dhanka kale hooyada dhashay gabadha ayaa ka mahadcelisay soo qabashada ninkii gabadheeda dilka u geystay. gabadheeda gacanta ku soo dhigeen alxamdulillaah, ilaah baa mahad iska leh. ilaahay mahadiis waa alxamdulillaah. waan u mahadcelinayaa dhalinyarada iyo gurmatay ee gabadheeda shalay iyadoo soonaad lagu dilay wadada. alxamdulillaah, shukran ilaahay u naxariista gabadheeda. ciidamada ee gabadheeda ninka dila gacanta ku soo dhigeen waa u mahadcelinaya. ilaahay khayr allah siiyo insha allah. gabadheeda suuqaan iskula imaanay, suuqay gudaha u gashay. anigana tacsiimaama xaafadda u gudbo isla suuqa agteeda ah. sii adeega erhooya anaa ku soo maraya waa israaceena. markaan soo noqdana gabadheeda horteeda baxday, kadibna waa lay soo wacay. anaa soo wacay, hadaan soo wacay taleefonka buuq baan arkay. markaan arkay waa naxay. mar labaadaan ku soo celiyey, gabadhaa iga qabata khayr allah siiyo. ciddaas iyagana waa u mahadcelinayaa. gabadheeda meel xunay ka qaadeen alxamdulilah. markaan soo wacay waxay i tiri gabadhan way dhiig baxaysaa, waana dhaawac halis ah. haddaad dadkeeda tahay haddaad dadkeeda ahaynba meeshaas isbitaal gurmadaan keennay. waa baaburaan soo qaatay, waa soo cararay. isuma dheer maaba jirine. haddaa in isbitaalka waxaa layidhi wax ma ka qaban karno. isbitaal Riyaana loo gudbiyo ceelasha ku yaalo. alxamdulilah meeshay ku dhimatay gabadheeda anoo arkinay dhimatay. alxamdulilah meydkeeda waa arkay. alxamdulilah dadkii ii qaadeen isbitaalka ii geeyeen, xoogaa isbitaalka lagu qashqashaaday. anigaa u soo waxay waxaan idhi gabadheeda dadkii ii soo wadeen isbitaalka ii keeneen yaa layga qashqashaadin hana laysii daa. wiilkan wiil xaafadda lagu fiican yaho noqday. iyagana waa u mahadcelinayaa. ciidanka gabadheeda iyo dhalinyarada ii gurmatay ajri xasanaad allah siiyo. alxamdulilah. taliska Africom ayaa war ka soo saaray duqeymo ay ka geysteen gobolka Hiiraan. sida faahfaahinta warkaan uu mar kale ku eegaya Cabdifataax Durdur. war-saxaafadeed ka soo baxay taliska Africom ayaa waxaa looga hadlay duqeyn ay diyaaradaha dagaalka Mareykanka 14 bishan Agoosto ay ka fuliyeen gobolka Hiiraan.
Mareykanka ayaa shaaca ka qaaday in duqeyntaasi oo uu la kaashanayo ciidamada Soomaaliya lagu beegsaday saldhigyo ay ku sugnaayeen Al-Shabaab. Sidoo kale waxaa qoraalka Africom lagu sheegay in weerarkaas ee dhanka cirka ay ku dileen ilaa 13 xubnood oo ka tirsan Al-Shabaab. Qiimeynta hordhaca ah ee taliska ayaa lagu sheegay in duqeynta lagu dilay 13 ka tirsan Al-Shabaab isla markaana aanay jirin dad reyd ah oo duqeyntaasi ku dhaawacmay ama ku dhintay ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka ka soo baxay taliska ciidamada Mareykanka ee qaaradda Afrika. Muddooyinkii u dambeeyay ayaa ciidamada huwanta ah ay howlgalo ka dhan ah Al-Shabaab waxa ay ka wadeen inta u dhaxaysa degmooyinka Matabaan iyo Maxaas ee gobolka Hiiraan. halka warkaas oo idinkaga imaanaya waa Juba TV ee magaalada Muqdisho. Dowladda Shiinaha ayaa qorsheynaysa inay sameysato roob macmal ah. Maamulka Shiinaha ayaa isku dayay in roob macmal ay ka sameeyaan kana hooriyaan qaybo ka mid ah koonfurta galbeed ee dalkaasi oo ay ka jirto abaar xun oo saameyn ku yeelatay nolosha dadka. Meelaha qaar waxaa ka da'ay roobab duulduul ah oo dadku aynay kaga soo kabsan karin saameynta abaarta. Keedka tamarta quwadda ayaa sidoo kale hadda hoos u dhacay in ka badan kala bar sida ay saraakiishu sheegeen. Baahida loo qabo qaboojinta hawada sare ayaa aad sare ugu kacday, arrintan oo culeys saartay shirkadaha korontada kuleelka oo jiray 2 bilood ayaa ah kii ugu dheeraa ee laga diiwaan geliyo Shiinaha. Xarunta cimilada qaranka ayaana sidaasi sheegtay. warkii aad kala socoteen Juba TV waa naga inta ku kulmi doona warkan kiisi xiga nabadgelyo.